waxay u muuqataa in la kala baxayo oo awood iyo sirdoon la isku sheeganayo. dowladda Shiinaha ayaa dhulka la jirtay Faransiiska waxaana hadda ay wajahaysaa dowladda Paris wajigaba xoog leh ilaa madaxda sarsare ee waddanka Faransiiska ay hor yimaadaan warbaahinta oo ay yiraahdaan waxaan u tabar iyo taaglaanahay inaan wax ka qabanno sirdoonka waddanka Shiinaha oo si ba'an noo bahdilaya. maxay tahay dhibaatooyinka xoogga leh ee dowladda Faransiiska ay hadda wajahayso? maxay tahay suuqlaanta Shiinaha ay ku rideen diyaaradii Rafale? maxay iminka doonaysaa dowladda Paris inay ku dhaqaaqdo? waa maxay ashtakada ka imaanaya Faransiiska ee ka dhana dowladda Shiinaha? warbixin xasaasi ah ayaa soo baxday oo ku aadan dowladda Faransiiska iyo madaxweyne Emmanuel Macron in ay u tabarla yihiin wax ka qabashada sirdoonka waddanka Shiinaha oo hadda suuqyada adduunka ee dhinaca hubka ka soo xiray dowladda Faransiiska. warbixin xasaasi ah oo soo baxaysa ayaan idinla wadaagayaa oo arrintaasi ku saabsan iyo waliba Shiinaha oo hadda kursiga gadaala fariistay kadib markii uu fashilay dowlado waaweyn oo reer galbeed ah. sidee wax u dhaceen? barnaamijka Barrow Show iyo caawa ayaad ku ogaan doontaan saaxiibayaal. intaa waxaa raaci doona ra'iisul wasaaraha nidaamka la yiraahdo Israel Benjamin Netanyahu waxa uu u boqolay dalka Mareykanka isagoo la kulmi doona madaxweynaha dalkaasi Donald Trump. warar soo baxaya waxay tilmaamayaan inuu qaatay fariin xoog leh oo ku saabsanaa Israel inay mar kale Mareykanka ka dhaadhiciso in weerar lagu jiteeyo dhinaca iyo xukuumadda Islaamiga ah ee Tehran. Ayatollah Ali Khamenei iyo sirdoonka dowladda Iran indhaha ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa ka soconaya aqalka cad. ma dagaalkii ayaa dib u soo laba kacleynaya? ma waxaa la gaaray xilliga diyaar garowga uu dhamaaday? mar kale miyaa gantaalo la isku aqsqayn doonaa? maxay tahay sababaha dowladda Sacuudiga iyo waliba hogaamiyaha nidaamka la yiraahdo Israel Benjamin Netanyahu ay isaga daba xigsadeen in ay si degdeg ah u gaaraan aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo? Trump markan ma waxa uu raadinayaa dagaalkii dib in loo bilaabo? maxay nidaamka Israel u doorbidayaan in Iran mar kale dagaal xoog leh lagu qaado? ma gantaaliya Haifa, Yafa iyo sidoo kale Tel Aviv ayaa loo xiisay? maxaa ka taagan gobolka bariga dhexe? warbaan iska oran doonaa taasina saaxiibayaal. waxaa raaci doona intaa kadib wafdi sare oo ka socday nidaamka Israel oo ay ka mid yihiin xubno Muusaada, la taliyaal sarsare oo Benjamin Netanyahu dhinaciisa ka tirsan hay'adda amniga gudaha ee Shabak la yiraahdo iyo mas'uuliyiin kale oo Israa'iiliyiin ah ayaa isku shubay Dooxa maanta gelinka dambe. waxaana la filayaa inay la kulmaan xubno ka socda Xamaas. malafiyaad adag ayaa la is hor dhigi doonaa. Xamaas waxa ay raadinaysaa kumanaan maxaabiis in ooda laga sii qaado. Israa'iilna 10 maxbuus ayay ku gorgortamaysaa in loo sii daayo. xaaladdu waa adag tahay. dowladda Qatarna waxay leedahay kalkani kalkama dambeeyo oo waa in wada hadalka si dhab loo wajaho. Cabdicasiis Barrow ayaan ahay saaxiibayaal. qodobadaas ayaan ku faaqidi doonaa taxanaha maanta caawa iyo barnaamijka Barrow Show. waa 6 Juulaay sanadku waa 2025. soo dhawaada ayaan idin leeyahay akhyaaray. haddii aad YouTube nagala socotaa ilmaamin inaad subscribe tiraahdo. haddii aad dhinaca Facebook nagala socotana follow ina soo dhaha. aad baad u mahadsantihiin. soo dhawaada meel kasto iyo madal kasto aad naga daawanaysaanba. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar. adduunyada waa la kala tagay. waxa lagu loolamayana waa sirdoon. dowladihii reer galbeedka mid maalinba mid ayaa qiranaysa in fashil weyn oo sirdoon uu ku dhacay. markan waxa af labadii dhawaaqay dowladda Faransiiska oo oranaysa Shiinaha ayaa naga adeegtay. tabar iyo taag ayaan u laanahay arrimahaas inaan wax ka qabanno. arrinta la yaab kale ee hadda warbaahinta soo gashana waxaa ka mid ah diyaaradii Rafale ee Faransiisku uu ku faanaya ahna jiilka ugu dambeeya diyaaradaha uu farsameeyo ee dagaalka oo cidi ay kama dhihi laadahay amaba ay gorgorin laadahay suuqyada adduunka. arrintani waxay ka dambeysay dagaalkii dowladaha Hindiya iyo Pakistan u dhaxeeyay kadib markii diyaarad uu ku duulay pilot Hindi ah oo la rabay Pakistan in lagu duqeeyo lagu dhuftay gantaal dowladda Shiinaha ay farsamaysay kadibna halkaasi lagu burburiyay.
wixii intaasi ka dambeeya dowlado fara badan oo caalamka ka yimi oo dowladda Faransiiska la galay heshiisyo kala duwan ayaa hadda waxa ay leeyihiin waan ka baxnay heshiiskii sabab la xiriira diyaaradahani waxgalkooda waxbaba kama jiraan sidaa daraadeed dowladda Faransiiska ayaa ku dhacday suuq la'aan baahsan oo xagga diyaaradaha ah dhinacii suuqa hubkana waxa hadda loo wacanaya dalka Shiinaha waxa uu iibinayaa diyaaradda la yiraahdo J10C oo wadankiisa uu soo saaro dowlado fara badan oo dalabkii dhinaca Faransiiska ka baxay ayaa halkaasi dalab geysanaya lacago malaayiin doolarna waxa sameynaya dowladda Beijing Emmanuel Macron waxa uu wajahayaa wajagabax siyaasadeed oo weyn oo la yaab leh isla markaana uu leeyahay markani waa igu adag tahay in aan wax isbedel sameeyo maadaama dowladda Faransiiska ay wajahayso dagaal sirdoon oo waliba suuqa ganacsiga galay oo aad la inooga hormaray dowladda Shiinaha ayaa ka jawaabin eedaynta ka imaanaysa Macron ayaa waxa uu muuqanayaa hadda nin kursiga gadaala fadhiistay oo muujinaya dagaalkaasi inuu ku adkaaday Shiinaha waxa uu ka mid yahay dowladaha sida weyn isku hayaan reer galbeedka iyo xulafada NATO oo Shiinaha ay sida weyn isku hayaan dowladda Faransiiska waxa hore ugu dhacay wajagabax xoog leh oo dhaqaalaheedii dhulka galiyay taas oo khubaradu ay tilmaamayaan haddii ilaa 2030 ku xaaladda sidan si ahaato ay Paris musallafi doonto bangiyadu ay xirmi doonaan dadku ay gaajo dareemi karaan xaaladuna ay si adkaan karayso dagaalkaasina waxa uu salka ku hayaa kansirdoonka xagee kale oo laga galay dowladda Paris markii Ruushka Turkiga iyo Shiinaha oo isbahaysanaya ay la wareegeen wadamadii galbeedka Afrika isla markaana dowladii Faransiiska ee halkaasi gumaysanaysa la soo raacdeeyay kaydadkii dhaqaalaha dowladahaas u yaallay bangiyada Parisna dib looga ceshtay Faransiisku waxa uu hadda wajahayaa xaalad aad u kulul Emmanuel Macron waxa la leeyahay waa madaxweynihii ugu nasiibka daraa ee dalkaasi hogaaminaya lama oga arrinta Shiinaha iyo ashtakadiisa in ay dowladahaasi waa reer galbeedka ay wax ka qaban doonaan tani waxa raacsanayd iyadoo hogaamiyaha Jarmalka uu xalay ku dhawaaqay dalka Ruushka in uu ka adeegtay hay'adda FSB ee sirdoonka wadanka Ruushkana ay dhaqaale curyaamin xoog la ku samaysay wadankaasi Jarmalka wixii arrinta ka yimaado barnaamijyadeena kale ayaan ku faaqidayaa haddii aan qodobada kale ku sii socdo marka la fiiriyo maanta xaaladda bariga dhexe waji kale oo hor leh oo weyn ayaa ku soo kordhaya kadib markii la sheegay ra'iisul wasaaraha nidaamka Israa'iil in uu maanta u boqolay uu socdaal ku aaday dalka Mareykanka waxa uu la kulmayaa madaxweynaha wadankaasi Donald Trump aqalka cad ayaa lagu jexjeexi doonaa masiirka gobolka bariga dhexe ra'iisul wasaare Netanyahu waxa uu qaatay dhowr malaf waxa ugu weyn in la weerarayo dowladda Iran la gaaray waqtigii gabagabada diyaar garowgeena la soo eebiyay Mareykankuna markaan uu qayb ka noqdo dagaalkaasi lama oga madaxweynaha dalka Mareykanka oo meel uu sanguul ka keeni karin aanu ku degdegin weligeeba in dagaalka dowladda Iran lala galayo uu aqbali karo iyadoo dowladaha Ruushka iyo Shiinuhu ay markan si cad oo aan muuqasho lahayn leeyahay waa u garab istaagayaan dowladdaasi Iran haddii dagaal lagu soo qaado maalmihii la soo dhaafay dowladda Iran qaybo ka mid ah hawadeeda ayaa xiratay markii la helay xog sirdoon oo la soo dusiyay oo ku saabsanayd in wadankaasi duqaymo iyo weerar kale ay ku soo socdaan dhinaca kale Netanyahu ayaa la filayaa inuu kulamo doora oo xasaasi ah uu la yeelan doono qaar ka mid ah madaxda sarsare ee Mareykanka warbaahinta ayaa loo ballamin doonaa Donald Trumpna waxa uu raadinayaa sidii xal loogu heli lahaa bariga dhexe laakiin su'aal ayaa taagan qubaradu ay meesha keenayaan waxa la leeyahay maxaa keenaya Amir Khalid bin Salman wasiirka wasaaradda dagaalka ee dowladda Sacuudiga oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalka Mareykanka iyo waliba Netanyahu inay si degdeg ah aqalka cad ay isaga dambeeyaan sirdoonka Iran arrintani waa falanqaynaya waxana la leeyahay gabagabada waxay u muuqataa dagaalo reeqdoodu ay dheeraato halkaasi in ay ka dhacaan la arki doonee Trump waxa uu miiska soo saaro marka wada hadalladaasi ay soo baxaan Trump waa nin hadalladiisu ay banaanka yaalaan oo aan waxba qarin sida warbaahinta qaar ay ku tilmaameenba meelaha indhaha lagu hayo waxa kamid ah bartiisa through social uu inta badan wararka degdega ah ku sameeyo waan eegi doonaa arrintaasi wixii ka soo kordha barnaamijyadeena soo socda
dhankana Dooxa aan ku keeno. maanta magaalada Dooxa waxa uu safray xubno sarsare oo ka tirsan nidaamka Israa'iil ee gumaysta dhulka Falastiiniyiinta. waxaa la filayaa maalmaha soo socda halkaasi kulamo aan caadi ahayn inay ka dhacaan. carabtu waxay naawilayaan dagaalka bariga dhexe in la iska soo gabagabeeyo oo xaaladiisu ay noqoto mid guud ahaanba lagu kala baxo. marka la fiiriyo wadahadalka waxaa ka qayb galaya xubno sarsare oo ka tirsan dowladda Netanyahu. dadka aade waxaa ka mid ah xubno la taliyaashiisa ah, xubno sarsare oo ka tirsan sirdoonka dibadda ee Mossad, xubno ka mid ah sirdoonka gudaha ee Shabak, iyo waliba la taliyaal qaarkood haya malafyada la haystayaasha. dhinaca kale wasaaradda difaaca Israa'iil hortooda maanta dadka ayaa isku soo baxay waxaana ay yiraahdeen suuragal maaha iyadoon maxaabiista la soo dayn inaad ka soo laaban doontaan magaalada Dooxa. dowladda Masar ayaa oranaysa mar uun iga soo dhameeya dagaalka Gaza iyadoo ka baqanaysa in dad boqolaal laga soo gudbiyo xadka isla markaana la keeno Siinaa. haddii ay taasi dhacdo waa Masar oo dagaalka lagu jiiday. sidaa daraadeed dowladdaasi waxay doonaysaa dagaalka in la soo gabagabeeyo. waxaa inta raaci doona nidaamka iska caabinta Falastiiniyiintu waxay codsanayaan dad fara badan oo laba ka mid ah reer Barquuthi in la soo daayo, kuwaasi oo xabsiyo madaxaha ku furtaa qaarkood ay ku xukunaayeen. 1,000 qof ayaa la soo dayn doonaa, 100 ka mid ah xabsiyo waaweyn ayay ku xukunaayeen. dagaalka bariga dhaxana waxa uu muuqanayaa in meesha uu ka sii bixi doono haddii magaalada Gaza la soo gabagabeeyo dagaalkaasi. hase ahaatee Israa'iil waxa ay weli ku doodaysaa Xamaas oo aan hub ka dhigin innaga dagaalku kama bixi karayno. Xamaasna waxay leeyihiin deegaanada ciidanka gumaysigu uu qabtay waa inay dib isaga baxaan. khiyaartayna la socotay tabinta qaybtan iyo taxanaha Barrow Show inta ayaan ku eebiyaa qaybtan. si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. aad baad u mahadsantihiin. Somali Quran Online waa dugsiga ugu faca ballaaran ee habka online-ka ku bixiya barashada Quraanka Kariimka. waana dugsiga ay wax ka bartaan yaryar waaweyn carruur iyo ciroole. haddaba waalid bishan waxa la qaadanayaa arday kooban ee ubadkaaga u ogolo oo gee dugsiga Somali Quran Online.